barkhad jaamac batuun oo ka mid ah musharaxiinta u tartamaya golaha wakiilada ee Somaliland ayaa maanta telefishinka Hoonkiiba la hadlay waxaana uu sheegay rajada uu ka qabo doorashada maanta loo dareeray. barkhad jaamac ayaa waxa uu sheegay in rajadii uu qabay markii uu ololaha ku jiray ay ka wanaagsan tahay maanta oo doorashada loo dareeray uu qabo. waxa la taaganahay hadda barkhad jaamac batuun oo musharax golaha wakiilada ugu horeyn uu kugu soo dhaweynaya barkhad telefishinka Hoonkiiba. aad baad maasantaa ku dhawaay adiga bahda TV-ga baad salaamaya Soofiya Sara. saako dhan waxaad ku jirtaa hawshii kormeerka shaqada maxaad isleedahay way ka soo bixi doonaan goobahaasi wallahi horta de ilaahay qadartiisa unbay wax kastaba ku dhici karayaan laakiin saadaasha iyo rajada tii markii hore aan qabnay tuka badan baan hadda qabaa waxaan isleeyahay qofka maroodijo ugu codka badan inaan noqonayo insha Allah biidnillaahi taala insha Allah maxaad ugu malaysay inaad noqonayso qofka ugu codka badan rajay waxyaabaha waxa jira waxda ifafaalooyin muuqda boqolaal goobood oo marnay ifafaalooyinkoodii galgacal soo dhaweyn iyo dadkii oo dhaaranaya oo codkii noogu ballan qaadaya dad aanu garanaynin dad aan maanta isugu ka horeysay oo noo muujinayo wanaag biseel siyaasadeed iyo ilbaxnimo bulshada arkaynay marka kuwayaalahaas markaan qiimeeyay iyo guud ahaan taageerayaasheedii hore waxaan isleeyahay marka codka la isku qiyaaso cod waxaad ku soo baxaysaa aad u ballaaran insha Allah ilaa iyo dhowr 8 goobood baan soo maray dhowr 4 goobood baan soo maray ilaa ما إلا مغربك dadku ma madaalaan meel cid jooga wallahi waxa aad loogu farxaa runtii ciidankii bilayska nabadgelyada aanu filaynay inay aad wax uga qabtaan waxba baradhaafiyay shicibkii baa wada ciidan noqday nidaamkii dhowraya nabadgelyada ilaalinaya waa wax ilaahay loogu mahadnaqo oo shicibkii baa sharaf leh oo nabadgelyada ilaashanaya xitaa iyagoo kala aragtiyo duwan oo xisbiyadu u kala codeynaya ayayna isku qoonsanayn isku caayeen isku gohaadinayn waa bisayl bulshay muujinaysaa marka fariinta la fari lahaa waa nabadgelyada ilaashada tiina iyaga haya walaaltinimada ilaashada tiina iyagaaba ka shaqeeyay marka fariin kale ma jirtee Soomaaliland inay guuleysato ma sugana adigoo ku bilaabay magacaaga ku soo telefishinka magacaygu waa Maria Drivers ma sha Allah saaka waxa soo baxay inuu codeey xildhibaanadeeda Sidiq Ali Kaan iyo Barkhad Jaamac Batuun oo ka sharaxan golaha deegaanka imika ku jira safkoon anigan codeynay imika ilaa 7 saaka ayaan ku jiray adigoo ku bilaabay magacaaga ku soo telefishinka magacaygu waxa weeye waan ku soo dhawahay magacaygu waa Xamse Cabduure saaka 5 subaxnimaanimi walina waan taaganahay xildhibaankan codkayga la doonayna waan siiyay insha Allah bidmilaahi karim waxaan leeyahay guul hay noogu dhamaato dareenkaygu aad buu fiican yahay maanta aan arkayo in si fiican dadku u codeynayaan dadkii baad moodaabay inay bilays yihiin doorashada si fiican bay noogu socotaa inkastoo markii hore moosayna cadaadis badan iyo ciriiri jiray haddana imka waxaan moodaa inay sidii hore yar dhaanto marka aad baan u taageersanahay xildhibaanka aan anigu doonayay sirtaan waan ugu ridayaa doorashada waxay kaga duwan tahay doorashada waa doorasho aad u xambaarsan laba golay deegaanka iyo golay baarlamaanka lagu dooranayo marka culeyskeeda leedahay marka dadkana waxaan leeyahay qof walba bilays ha noqdo si aynu horumar u gaadhno Fiime Yaasiin Muuse telefishinka Hoonkiiba magaalada Hargeysa